sanadihii ugu dambeeyey waxaa dhibaatooyin ay la soo darsan wariyaasha ka howlgala Soomaaliya siiba magaalada Muqdisho waxaa jira wariyaal badan oo halka lagu dilay qaar badan oo la dhaawacay kuwa kale oo ka firxaday oo dalka dibadiisa u cararay oo qaxay Maxamed Shiil Xasan ayaa sanadkeen soo dhaafnay 2015 wuxuu warbixin ka sameeyay arinta oo uu dabagalay warbixintiina waxay u dhacday sidan markaan eegno galiyahaanba xagga nidaamka cadaaladda ama garsoorka la fiiriyo waxaa la oran karaa oo kaliya hal wariye ayaa kiiskiisii qof loo horkeenay sharciga wuxuuna ahaa wariyihii allah u naxariistay xasan yuusuf absigu ahaa qofka kaliya kiiskiisii qofkii macnaha dilka geystay lasoo qabtay ama cadaaladda la horgeeyay inta kale ilaa iyo hadda lama hayo qof loo dabagalay ama qof loo xiray oo la horkeenay cadaaladda ama garsoorka si looga waa Ismaaciil Khalifa oo ah wariye intii duruufaha dagaaladu ka jireen dalka ka howlgalay Muqdisho haatana ka tirsan shabakada lagu magacaabo 2013 oo ay ku bohoobeen 24 idaacadood oo madax bannaan oo ka hadlaya sida aan wax horumar looga gaarin in la helo cadaaladda oo la horkeeno cidii ka dambeysay dilka in ka badan 30 wariye oo Soomaaliya lagu dilay tan iyo sanadkii 2008 dilalka oo intooda badan ka dhacay magaalada Muqdisho hadalkan wuxuu ku soo beegmayaa maalmo ka hor markii Mustafa Cabdi Nuur Shafana oo ah wariye madax bannaan lagu dilay weerarkii hotelka Saxafi ka dhacay isagoo shaqadiisa gudanaya waxa kale oo uu ku soo beegmay maalinta 2 November oo ah maalin loo qoondeeyay in la joojiyo dhibaatooyinka lagula kaco wariyayaasha isla markaana dawladaha lagu xusuusiyo in ay baaritaan ku sameeyaan dilalka suxufiyiinta si cadaalad ay u helaan Mustafa Xaaji Cabdinuur waa wariye aan dalka ka bixin tan iyo intii ay jireen xaaladaha deganaansho la'aan wuxuuna walaac ka muujiyay sida wariye uga howlgali karo Muqdisho wuxuuna sheegay in ay tahay arrin adag oo u baahan in loo bareero maadaama ay saxaafadu tahay bartilmaameedka ugu jilicsan ay ku dhici karaan weerarada kuwa hubaysan runtii in lagu shaqeeyo magaalada Muqdisho gaar ahaanna laga dhacqato howl la xiriirta nimadayada saxaafadda waa arrin aad u dhib badan marka la eego dhibka faraha badan qofka wariyaha ay tahay in uu ku dhex shaqeeyo oo ku jirto xaaladaha iyo xaalad maalmeedka magaalada arday badan ayaa waxaa saameeyay jahawareer la soo dirsa marka ay jaamacadaha galayaan ee ay dooranayaan waxa ay rabaan inay bartaan tiiba ardayda ku nool magaalooyinka ay dadka Soomaalida ay ku nool yihiin waxa wareerkaasi saameyn uu ku yeeshay geedigooda waxbarashada ee jaamacadda iyadoo 2 sanadood ee ugu horeeyay ay arday badani jahawareerka ku jiraan kuliyadda ay ku biirayaan Abdishakuur Xaaji Maxamed Heersare ayaa warbixintan inooga diyaariyay Hargeysa jahawareerkan ayaa inta badan loo tiriyaa inuu ka uunkamo ardayda oo aan helin wax talasiin ah gaar ahaan markay jaamacadaha galayaan isla markaana sameynayaan doorashada waxay baranayaan ama kuliyadda ay galayaan iyadoo xilliga hore ay dugsiyada sare dhiganayaan qaar badan oo ka mid ah aanay qiimeyn isku sameyn waxay ku fiican yihiin isla markaana aanay amintaa helin tala ku hagta ogaanshaha waxay ku wanaagsan yihiin ay muhiimadda saarayaan inay takhasusaan u bartaan marka ay jaamacadaha galaan Cabdirashiid Yuusuf Gaaxnuug waa aqoonyahan ku nool magaalada Hargeysa in muddo ah wuxuu ku soo dhex jiray bahda waxbarashada cilmi baaris iyo qoraallo kala duwanna waxa ku sameeyay sababta ay ardaydu u jahawareeraan marka ay jaamacadaha galayaan ardaygu markuu secondary-ga ka baxo isla markiiba wuxuu u confuse garooba oo waxa weeyaan wuxuu ku wareeraa talow maxaad jaamacadda maxaad qaybtaad aad qaadataa marka 2 factor ba ayaa determine gareeya 2 factor ba 2 arrimood ba saameyn ku leh oo ay kamid tahay saaxiibkii oo qofka ay saaxiibka yihiin oo yiraahdo warana ku ogo halkaas aad gelaysaa faculty-gaas fiican taas caynkaasiya marka saaxiibkii go'aan qaadashada qayb weyn ku leeyahay tag labaadna waxa weeye waa suuqa shaqada suuqa amalka wuxuu eegayaa markuu jaacada ka baxo talo shaqada ugu dhow ama takhasuska lagu heli karo shaqo waa kee labadaas factor ayaa inta badan ardayga markuu secondary ka baxo raadin weyn ku yeesha waana runtii garnada uu leeyahay
oo ilmihii wax weeyaan wax qof soo tabantaabiya oo waxaan lahado maarata counseling ayaan jirin imika ilaa iskuullada qof counseling oo la taliya oo markuu ogaado wuxuu ku fiican yahay waxaasaad ku fiican tahay halkaa ayaa jira laakiin iskuulladiina male xataa jaamacadda markuu yimaado male qaybtii maaragtay la talinta ee odhan lahayd waxaas maxaad ku dooratay taas maana kaaga fiicnayn saasaad malaad ku fiicnaan lahayd inta badan waxaa ardayda saamayn ku leh waxbarashada dugsiga sare oo ah halka uu ka soo bilaabmo hayaanka waxbarashada sare waxaana marxaladda dugsiga sare ay ardayda fursad u siisaa inuu isgarto waxa uu ku fiican yahay iyadoo ardaygu baritaar ka helayo cidda gacanta ku haysa sida waalidkiisa iyo goobta wax ka baranayo waa kan cabdirashiid yuusuf gaaxnuug isaga waxa weeyaan ardaygu inuu eego wuxuu ku fiican yahay isagoo dub u raacdiya maadooyinka ku fiican yahay ma arts ba mise waa science marka hadduu maadooyinka ku fiican yahay secondaryga markuu maadooyinka artska yihiin waxa fiican facultiyada relatedka waxaa la aynu qaataa fiican haddii uu science-ka ku wanaagsan yahay saynisadana markaa facultiyada kale science-ka sida medicineka engineeringa veterinary iyo agriculture waxaas inuu qaata ay tahay waa markuu isagu iswadayo laakiin runtii duruufaha ku xeeran waxbarashadeenu raad weyn bay ku leedahay ardayga go-aanka qaadashada la-aanta meesha uu tegayo waxna uu ku fiican yahay wax kalena kuma wanaagsanaa ummadaha horumar iyagu qofka talentkiisa markay ogaadaan ugu horeyntaba ayay kobciyaan ay koriyaan ardaygu taasuu la koraa ilaa markuu primaryga dhigto taasuu la koraa waana la kobciyaa wuxuu ku wanaagsan yahay waxaan ku wanaagsanina halkaasa lagala soo jaan qaadaa ardayda jahwareerku ku dhacay markii ay jaamacadaha gelayeen waxaa ka mid ah cabdishakuur caydiid nuur oo ku nool magaalada hargeysa waxauu sanadkan ka qalin jabinayaa jaamacadda hargeysa University of Hargeysa kin waxa ay soo waajay ardaydu kala waxa laga yaabaa saaxiibada in kuliyada kale maxay u bataan deetan rag badan bay igu taliye kuliyada badan aan karo laakiin maalintan halkan iman iyo markan soo socday ma garanay wali eranka kuliyadan qaadanay anoo marka hore kuliyadan jeclaa laakiin asxaabtii ay u bateen kuliyada kale waxa iga hortimi inaan in badan warwaro talamiyaad qaadataa miyaad iska deysa haddana markan halkan waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamed shiil xasan oo warbixintaas inoo soo jeedinayay ayuu kaasi ahaa waxaan filayaa warbixintaasi kadibna wariyaal kale ayaa laftigooda la dilay oo dhintay waxaana warbixintaas cabdishiil diyaariyey 2015